السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وائل سلامي walaalaha Soomaaliyeed gaar ahaan reer One Life waa Sayid Maxamed qofkan la hadlaya. Waxaan iminka ku suganahay London muddadii bishii December iyo bishan baan joogaa. Marka dad badan ayaa isoo raadinayay isoo wacay. Marka walaalayaal qofku bini'aadanka mararka qaar waxa loo baahan yahay markaad in badan socoto wax badan qabato mararka qaar inaad fariisato xisaabiso markaysaa wixii kuu qabsoomay iyo waxaan qabsoomin maadaama sanadkii horena dhamaaday sanad cusubna aynu galnay arrintaas baan hadda maaragtay aniga iyo dad kale mas'uuliyiin ah la socoteen inaanu maalin dhaweyd Sofia aadnay oon soo qiimeynay macnaha waxyaabihii nooga qabsoomay meeshaas aan tagnay iyo waxyaabaha yani ka soo baxay sida aan u aragno qof walba ra'yigiisa كلي ولا سعتان شيخ يوسف يو إبراهيم بن إسرائيل بكلي ولا لها سن إيجون إن شاء الله تعالى ويه لما قطعي أما رأي جوده قرن ويكون سوبدين إبراهيم كل قرار وصوص ميوان أركي مركا لابكون إلى وطن بدل بدن بسعودة كلي واحد ربح دينا يحسوسي هل كان أنشو مانتي وحيرو أدي يسوع جتان أركي وحاوي روبا داية ماشي هو إنجليزكا قبل بدن باتشرا ودن كان ودن آدو قروح بدن رنتي آدو هرمرسن ودن ماذا يورو بدن كقول قالها بدن marka halkan waxaan ka arkay dad dhalinyaro ah oo shaqaysanaya macna waa wadankoodii bay joogaan qabowgan iyo roob aad u baan baadaya markii jawigaas bay ku shaqaynayaan meeshaas waad ka arkaysaan halkaas ragga waxaad ka arkaysaan shaqaynaya qabowgaas jooga waad arkaysaa laamigii bay dhisayaan marka laamigaas quruxda badan la samaystay kuma uusan imaanin shaqo adag buu ku yimid macnaha qofka asadu had iska fadhiyo waxba kuma imaanayaan hadda Soomaaliyan tagay jidkii waxa inoo dhisan Talyaaniga inoo dhisay iyo jidkii inoo dhisay Chinese waa lagu socdaa laakiin waxaad ogaataan haddaadan adigu dalkaaga u istaagin aqoontaada aadan kor u qaadin baxnimadaada aadan kor u qaadin oodan soo saarin bulsho iyo dhalinyaro maaragtay maskaxdooda iyo aqoontooda dhisan tahay yani dadka waad ka haraysaa marka aad runtii waxaan ugu faraxsanahay markaan dib u fiiriyo 2017 dad badan oo meelo kala duwan caalamka inaan la kulmay maanta in badankooda inay yihiin dad liidar ah oo professionals ah shaqooyinkii ee mushaarka ay qaadanayeen ka baxay maanta shaqaysta kulay waad garanaysaan dad badan oo maaragtay sidaas maanta u soo baxay alxamdulillah waa wax lagu farxo dad entrepreneur baanta inay soo baxeen qaar in badan hadda ay maskaxdooda ka guuxayso sida u dhaqaaqi lahayn bulshada isma bedeli karto laakiin hal qof baad tahay haddaad hal qof maanta wax ka bedesho noloshiisa wax weyn baad qabat marka maanta runtii aad baan ugu faraxsanahay inay jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed rag iyo dumar leh entrepreneur maanta oo mushaarka ay qaadanayeen ahaa lacag yar runtii bishii maantana 5 jibaar 10 jibaar soo saartay dadkaas dad waxay isku jiraan Soomaali jooga waxay isku jiraan dad jooga Yurub iyo wadamadan kale Australia ha noqoto marka runtii hadafkeenu wuxuu ahaa markii hore dadka in laga dhiso maskaxda shirkaddan aad u jeedaan waa iska company weeyaan marka companyguna waxaan u galnay anagu inaan hadafka caamka ah ee ummadda dhan ka dhaxeeya la doonayay in wax laga barto la fahmo ma arkaysa inaan wax ka fahmo barnaamijkaas wuxuu ahaa cryptocurrency ama digitalka aqoon baan ku jirta meeshaas laakiin maanta dad baa noo soo baxay oo nafsadoodana wax taray bulshada kalena wax ka bedeli doona insha Allah marka maanta wax qabo way boqolkiiba hal gudbi dadka saas wax isku sii gaarsiinayaan marka waa Sayid Maxamed oo idinka soo salaamay London meel kasta joogta waxaan idin rajaynayaa guul iyo horumar weligaa xoogaaga ku shaqaysan maskaxdaadana ku shaqayso oo dhis buugaagta akhriso horumarka maaragtay dadka gaaray sida maaragtay Bill Gates iyo dadka maaragtay waaweyn akhri buugaagtooda sida buugga la yiraahdo Rich Dad Poor Dad oo kale Napoleon Hill buugga qoro kale tusaale ahaan buugaagtaas oo dhan haddaad akhrisataan waa Think Grow Rich way aad baad wax uga faa'iideysaan buugaagta akhrista taariikhda wax ka barta mushaar aad qaadanayso forever yuusan ku noqon inaad ku sii socoto saad wax iskaga bedeleed ku fikir inaad adigu noqotid qof dhisan ayaa ka muhiimsan lacagta aad hesho marka anigu ujeedkan wuxuu ahaa dadkeena isla shaqeynay in dadku la dhiso wax la fahansiiyo waxaan fursadda aad soo gasho maalin bay imaataa weyn shaqeyn kartaa mana shaqeyn karto welina hawsha waa socotaa insha Allah 2020 waxaan rajaynayaa dad badan oo sidaas oo kale inaan soo saarin haddii ilaahaymo meel kasta aad joogtaan waxaan idin rajaynayaa guul waa Sayid Maxamed waxaan idin leeyahay meel kasta aad joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nabaday